waxaa la dhahaa Ismaaciil Cali waxaan ka socdaa magaalada Mandera maamooyinka Kenya waaye marka maanta meeshan waxaan u arkaa farxad weyn ayaan ka dareemayaa maxaa yeelay waa maamooyin saddexda gobol degmo maxay ahaydey saddexda county ba iskugu imaaday Mandera Beled Xaawa Suufto waana ku faraxsanahay aad iyo aad horumar weyn waan ka gaarnay isdhaxgal fiican beecsharo wanaagsan dhan kasta loo fiiriyo ma aragtay guul badan baan ka gaarnay marka maamooyinkan iyo hay'adan isu keentay oo dadkan halkaan iskugu keentay oo u weyn tahay Women for Peace iyo hay'adii kala la jira waxaan leenahay annaga haddaan ahnay maamooyinka Kenya iyo Soomaaliya iyo Ethiopia ka imaanay waana ku faraxsanahay waxaan rabnaa markasta oo decision la sameeyo ama ma aragtay nabadgelyada oo loo hadlayo ama dagaal u dhaca waxaan rabnaa maamooyinka in laga qayb geliyo waxa farxad weyn in ah oo haweenka oo dhan meesha iskugu yimid farxad u ah in ay maanta soo bandhigeen baahidii iyo dhibkii ka jiray wadamada ay matalayeen isla mar ahaantaasna haweenka sida ay uga soo gudbeen caqabadihii ay la kulmi jireen iyo heerka ay maanta taagan yihiin waxaan u mahadcelinayaa Mandera Women for Peace oo wax badan ka soo shaqeysay iyadoo kaashanaysa gabdhaha dhigooda ah suufka iyo Soomaaliya sida Beled Xaawo waxaa jiray kulamo badan oo lagu awoodsiinayo dumarka sida forumkii Women Change-ga ahaa ee ka dhashay Cross Border Women Network kaasoo mar walba looga hadlayay sustainability-ga ama waaritaanka saddexda wadan haweenka joogo sida ay isku garab qaban lahaayeen muddadii uu socday kulanka waxaana loo sheegay in qabteen Women for Peace dialogue ay u qabanayeen 85 qof in ka badan dad 45 qof ilaa 85 qof balse wax dumar ay ka soo qayb galin taasna waxaan leeyahay waa caqabadaha wili taagan maadaama hay'adii implement gareynaysa ama hooshooda ay haween ahayd haddana waxa ayaan daraa in ay wax haween ah oo kulankaas ka soo qayb galin looga hadlayo dhibka iyo isku dhaca ka jiro Mandera marka waxaan boorinayaa hay'adani inay ka fiirsato oo mar walba survive ku noqoto ka soo qayb galka meesha haweenka Mandera waxaan u sheegayaa inay ka ogaadaan talaabo kasta oo la qabanayo si kulamadaas looga mar dhaliyo ma sha Allah kulan aad u qurux badan maanta meeshaan ku qaadanay maama Cabdi wax badan ay kulamo badan noo qabatay laakiin maanta waa farxad aad u weyn oo maalinta haweenka ah marka aad ugu faraxsanahay kulanka maanta waxyaabaha nolosha sheeg waxa kamid ah arrimaha tahriibka abaaraha maxaan ku idhahdaa dhirta la gooynayo gudniinka fircooniga wax badan ay maama Cabdiina soo bartay aan ka qayb qaadanaa maadaama aan reer Ethiopia bulshada waxaan u gudbinaa arrimaha aan awal wax badan oo naqaanin meeshaan ka faa'iidnaan u gudbinaa bulshada way kamid yihiin sida gudniinka fircooniga sida tahriibka sida dhirta guritaankeeda wax badan aan u sheegnaa markaan wadanka anaga tagno arinta bulshada aan u diray waxa waa in laga wacyigeliyo dhalinyarada sida tahriibka sida dhirta la guraayo in laga wacyigeliyo